بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عاو تاريخ دو تهي سدادي بشي لحاد 2019 anigoo ah nabadoon abwaan Cabdullaahi Maxamed Jibriil waxaan rabaa halkaan inaan gabay ku soo gudbiyo magaciisa la yiraahdo dhalad waxaan gaar ahaan u mahadcelinayaa saldanada soo jireenka ee gobolka Sanaag beesha Warsangeli Maxamuud Harti gobonimada ay maanta sameeyaan rag iyo dumarba waxaan leeyahay hambalyo waxaan si gaar ahaan iyana si dhiirigelinayaa gobolka Sool bismillaahir rahmaanir rahiim la socod wanaagsan almada u dhacday gabay inaan dhaafay la imid dhacdada iyo taariikhda waa la isku dheershaa sidkiisa dhamaadaan arkay iyo dhugashadiisi dhagaha u fur aawo kale uu dhadhamaya Warsangeli dhulkiisa iyo magadan dhalashadiisi dhaqdhaqaaqi hore waa intaan la isu dhaadhicin dhaqanka artiga weeye iyo dhumada daarood dheeldheel in lagu weeraray dhagar ma yeelaan Cabdullaahi dhawr buu ka dilay dhimatay jeegan siday damalka ugu dhuunmudeen carare dhoofkii dhalinyaro iyo dumar shacabku way dhinac istaageen dhulkana laga sifay meelaha ay kaga dhawaadeen dhabada Sanaag iyo xadeed loogu dhici waa taariikhdu waa dhaxalgalaya sida dharaareed dhahar iyo dhabadii cali shiraad dhaanka marisan gobonimada waa dhalasho iyo oday dhacankiis gutooyinkii dhabar jabshay baan barax ku dheehnayn gutooyinkii dhabar jabshaan barax ku dheehnayn dhambaal baan u dirin janamadii diiday dhuuniga Dakar iyo Xuseen dheere iyo xeele dhidiye boqolaal dhamaystiran hubka oo dhaarsan baa yimi dhufaysada la galay ciidankii dhalatada ahaa dhumahana wada jeedshe iyo kare dhuma weyn dhamaanteedba Soomaali bay guul u dhaliyeen taariikh dhamays ah iyo tixwaa loogu dhigay buug sayid kama dhacaan maanta iyo guray dhigiisii darbaxada ku taal Muuse waa sii dhutinaya buhoodle kuma dhiiradiyo dhagaxa caymeed garaad faarax dhamac waarta iyo dhuxul kulaalsi garaad faarax dhamac waarta iyo dhuxul kulaalsi dheeligu wuxuu naga yimid dhinaca reer Soole isma dhiibi jirin wiilashii dheega Maxamuud qarnigii la soo dhaafay bay sida tandhaameen hadday sadheeg u wada jeensadaan lama dhaqaajeen dhoomaha siyaadoo dhan baan dheehin qayladu jeegaani dhumuc iyo awood kuguma dhamaane mar haddii qalbigu meel dhacaan eegin dhaayo Warsangeliba dheef diiday iyo dhuuni maalinahay idinkuna ka dhiidhiya gunimo waa ka dhimataan hoggaan dhiiran baa tahay dadkuna kuma dhaliilaane dhulka maban karaashow haddaad maanta dhicin weydid giraandhiilo iyo gabayadii kaama dhaadhicin daarood dhamays iyo hartiba waad ka dhalateen dhudhuna idinma siin waayin iyo hiil dhamaystiran shacabka idin dheeg taagan iyo dhudo walaalaaya ku dhaqaaqa maanta midnima noogu dhowda afartaa dhameeyay waxaan dhinac ka raacsiiyey haddaan se dhowrka madaxweyne iyo dheega kale eego dhabta iyo xaqiiqada ninkii dhiciisa baa mooge rakalay heshiis wada dhigteen la isku dhaarsaday dhacdeed qarsoon baa jiro oo xeerka dhaawacay dadka uma dhaxayn karo mas'uulka wax u dhaadanay inkastoo dhismaha maamulka iyo calanka loo dhiibo marna talada laga dhowrayaan shacabka dheehayn dhinacaad ka eegtaba ma lug dhaafsan baa jire mar haddaadan laan dhabiyeeyo dira ka dhumnaanin ama aadan dhiig iyo naftiyo horin dhaqaalkaaga dhabadaad ku joogtay wadadu way ku dhumisaay dhaxan iyo dhufaysnimaan u gelin dhowr ma daafaco aarkaa la wada dhowraya shacab dhammaantiis gabaygu wajiyo badan weeye nin walba sidii loo kala guran lahaa iyaga dadku yaqaan aad iyo aad baad mahadsantihiin afgaanada Puntlandna waxaan rajaynayaa inay gabayga dhalad ka qayb qaadan doonaan insha Allah aad baa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh